لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كان السادة أركيسان وحان كسو دويني وفد كالسعودة أغلق السنة دولة بنلان دولة الصومالية قيبتي سبنلان هي هالكان كسو دويني يعني هو كسو الرئيي وحالك اللي يسوي من وحويه حياله بدن با مركسن oo dalka ka murugsan dhinac kasta ahaatay dhinaca federaalka waxba ka murugsan xusuusan aqalada iyo dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe Puntland dhexdeeda laftigeeda waxba ka murugsan waqtigan marka wuxuu ka wakiil yahay aqalkii sare ee dawladda Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan wuxuu laga doortay waqtiga halka socda dad xubnihiisan maamulka Puntland baa laga doortay iyaguna gaar ahaan u xisaaban yahay inay danahooda iyo wixii markaas ku aadan ay kala hadlaan oo ay kala tashadaan waxaana la isugu yimid wada tashi wixii problem ah oo jira ama ha ahaado heer qaran ama ha ahaado heer dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka in laga hadlo iyo xiriiradii jiray oo kala go'ay in laga hadlo oo la iska waraysto oo markaas hadhow loo warceliyo aqalka sare intii xagga ay joogtay in loo warceliyo hadii ilaa ilmo waxaad ogtihiin oo ka warhaysaan inuu jiray khilaaf dawladaha xubinta ka ah dawladda federaalka iyo dawladda dhexe September 2018 kaasoo kala go gaaray welina aan la isku soo noqon sidii la rabay inkastoo la wada hadlo ay kala go'een maamuladii iyo dawladda dhexe arintaas aqalka sare ayaa u qumay hawl adag buu ka qabtay wufuud buu kala diray maamuladii xogti baa la soo ururshay waa la isu keenay xamar baa la isugu tagay aqalka sare guddi gaar u saaray guddiga gaarka ah dawladda la xiriireen muddo adugu markii la wada hadlaayay oo meelo badan la taabtay waxa la isla gartay in aqalka sare go'aankii uu soo saaro iyo xubno ka mid ah dawladda dhexe oo wasiiraha oo wakiilka ahaa waxay isla garteen aqalka soo saaray in lagu xalliyo mashaakil jiray mashaakilkaas waad ogtihiin waa ugu wali taagan waxa ugu horeeya koow waxa ah dastuurkii la isla raacay oo federaalka ahaa oo qabyada ahaa wadadu ku socdaa maaha wada sax waa qaldan yahay wax ka hagaagana ma jiraan afartii sano oo dawladda federaalka madaxweynaheeda iyo baarlamaanadeeda la doortayna waxa ka haray muddo 2 sano ka yar hal sano iyo 8 bilood baan u maleeyay baa ka haray wax dastuur maanta jiraan ma jiraan wixii ay soo diyaariyeen la isu raaci waa maxaa yeelay dadkii ka shaqeyn lahaa dastuurka iyaga ayaan qaabkood maqan yahay waxa maqan xubnihii maamulada ka socon lahaa oo guddiga farsamada ku jiri lahaa ayaa maqan oo waxa ay soo taagay dawladda dhexe ay soo taagtay ilaa hadda kuma jiraan waxa kaliya oo shaqadii gacanta ku hayay waxay ahaayeen 5 xubnood oo dawladda dhexe ay soo saartay kuwii dalka maslaayay rasmi ahaantiisa danihii state-ka maslaayay wali ma shaqeeyaan kuma jiraan barlamaankii marka labada xubnood oo maslaayay xubnihii maslaayay baarlamaanka jira laakiin kuwii farsamada ah state-ka maqan waxyaalihii ay yiraahdeen ka soo shaqeeyeen la islaaf karan waa markii aqalka sare keenay kaas qodobkaas ugu horeeyay wixii la soo saaray waxa ku xigay amniga dalka sidii loo sugi lahaa isagana waa artiin meeshu marayo dhibaato badan baa ka jira ayaa ka hadlay waxa ka mid ah iyagana maamulada markii doorashooyinku ay ka jiraan inaan la faragelinna hadee meediyadu waa ka waraysaa bay la tahay inta meelooda wax ka dhaceen oo la doortay wax ka dhaceen oo ilaa hadeer waxa weeye waxay wax ka dhaceen koonfur galbeed faragelintii ka dhacday waad ogtihiin fidmada ay keentay iyo dhibaatada ka dhacday dadka ku dhintay iyo dadka xirxiran inta waa ka waraysaa Puntland oo ballan gaar ah ay ka jirtay dawladda halkan markii aan la imaanayay oo anigu aan ka mid ah dadka halka yimid oo oversight ka ahaa meeshaan in doorashadu si xaq u dhacdo gacan gelin xoog leh waa ka dhacday oo dawladda dhexe ay lacag badan ku bixinaysay oo aad ogtihiin 20 xubnood oo tartamayay anuu ma garan karo inta aan wax la siin laakiin waxaan isleeyahay badidooda lacag baa la soo weystay in la carqaladeeyo inay ka soo bixin doorasho xaq oo xalaal ah inay ka soo bixin laakiin nasib wanaag dadka halkan degan way kaga guuleysteen ciday rabeen bay doorteen oo soo baxday waxa hadda taagan arintii Jubbaland waad ogtiin iyadana oo heshiis la soo galeen
dawladdu ay la soo gashay xukuumaddu la soo gashay prime minister ku tagay Nairobi wafti loo diro dowladda xagga socda ay tageen heshiis la soo galay markii xamar la isugu yimi annagu laftiga daraf ahayn pressure group oo in wixii lagu soo heshiiyay inay hagaagaan oo dhameystiraan wax ka hirgalay oo micno leh ma jira faragelinta sidii u socotaa dad badan baa jira xamar lagu masruufo tartamaya dad badan baa jira calqalad xagga ka wada in doorasho xalaal inay ka dhacdo calqalad bay dowladda xagga wada taas international community-guna waa ogtahay annaguna waa ognahay shacab weynona wayna ogaadaa haddayan ka warhayn marka wadanku meel fiican kuma socdo wadatashi baan u nimi anigu waa ka soo horeeyay rag dad kale waa yimaadeen qaar kalena waa yimaadeen baan filaynaa wixii ka soo baxana waa heli doontaa waad ogtihiin aqalladii faragelin baa lagu hayaa aqalkii golaha muxuu ahaadee deegaamada oo halkaan Puntlandkiisa laftigiisa golihii shacabka baa ku margan oo wufuud soo diraya xamar u geynaya ku wareysanaya dastuurkiiba lagama warhayo waxa ku qoran madaxdii laftigoodii baa qayb ka qaadatay waxa ku jira marka la furfuraayo aqalladii dalku waad ogtihiin siduu ku dhisan yahay nidaam federaal u qaatay Soomaali ka kaliya la soo keenay karaa maanta nin diili karaa ma jiro ninkii isle waxbaad ka bedeli karaa waa inuu ogaadaa qolbu ku xiran yahay federaal la yiraahdo oo furihii ay maamuladu haystaan iyo aqalka sare ay haystaan kama bixi karo inuu ku dhaqmo mooye kama bixi karo taa weyna ogaadaan xubnaha aqalka golaha shacabka oo baarlamaanka iyo ragga muxuu executive-ka madaxweynaha iyo prime minister-ka iyagu isay suuqa reebay iyaga yaqaan iyo la taliyaashooda gaarka ah waana magacooda sheegay iyagu yaqaaneen aqalka dalkaas waa federal system buu qaatay sidoo ah loo hirgeliyo haddii kale iyagoo qabiyaha ay kaga tagayaan meesha ceebteeda iyo magaxumadeeda iyo taariikhmadeeda iyaga qaaday intaas ka bacdi waxa weeye annagu ka soo harimayno hawl adag baan ka soo qabanay ragga halkaan fadhiya ragga waaga baarlamaanka ku jiray dhinacayga waxa fadhiya ninka la yiraahdo professor Juurile senator Juurile oo ka wakiil ahaa waaga dastuurka la sameeyay golihii shacabka oo markaa jiray waxa kamid ahaa Ahmed Jaamac oo kamid ah muxuu ahaadee golaha muxuu ahaadee baarlamaanka Puntland kamid ahaa intuba way ka warhayaan waxaan aad u la yaabaa يعني barnaamijka qabaaliga baa inoo keenay in uu aqal sare tago ama uu xildhibaan noqdo federaal isagoo aan dastuurka federaalka aqoon waxa ku qoran oo sida loogu dhamaco ama madaxba ka noqdo hogaamin ka noqdo ama gudoomiye ka noqdo ama gudoomiye ku-xigeen ka noqdo ama xil kale ka qabto waxa aad u la yaabaa in maamulada iyagu deegaanka anaga maanta waxaan ku arkay waxa yimi gudoomiyaha Hirshabeelle oo baarlamaanka Hirshabeelle gudoomiyihii Jubbaland oo muxuu ahaayay aqalka maamulka Hirshabeelle baarlamaankiisa iyo gudoomiyihii Koonfur Galbeed oo baarlamaanka ahaa halkan waxay ugu yimaadeen gudoomiyihii dawladda federaalka dawladda Puntland ugu yimaadeen waxaana hogaaminaya gudoomiye ku-xigeenka labaad oo golaha shacabka wuxuu u sheegay NGO baa soo siiyay muxuu ahaayay kharashka bixinay yaa u dirtay NGO inay anaga baarlamaanka soo dhaxgalaan haddii ay jiraan wax genuine oo baarlamaanada adduunka wax ka socda ama ay jiraan hay'ado caalami ah oo la isla aqoonsan yahay oo dawladdu waxay leedahay madaxweyne leedahay Puntland executive-keeda iyo dastuurkeeda waxa mas'uul ka ah madaxweynaha Hirshabeelle madaxweynaha ka ah galmudug madaxweynaha ka ah aw san ogeyn hadday aqalladii deegaanka ku kacaan mas'uuliyadaas yaale الشعب وين أنتو سينا مسؤولية ديال إن فرفرة وحي لا دسي لا فرفرة أو ديس مثل ولا وريجا أيو تاسع وقاعدة ما أقل كهوسنا أو هاي الدستور أنا أقل هذا قبل هذا وإن يقان الدستور كله واحد كبره كل يوم وين يقان كحيجونه وين يقان كل يوم شفتها وين يقان حتى ينقون سمنا هوفره أنا هذا الديار بانون هاي أنا هدانو غير Puntland kaliya hadda aanu nahay oo ay joogaan halkan waxay gudiga aqalka sare oo wakiilka ahaa oo fuud hadda ku yimi inaan gudiga joogtada la shiro waxa dastuuriyada yihiin aanu micnayno iyo wax ay waajib ah oo ka saaran aanu micnayno taasna shacab weynahan oo bandhigaynaa shacabkuna ha ogaado wax la qarinayo ma jiraan wax walba miiska saaran yihiin maanta waana salaamantii